salaamaya allaha raxmaanka oo noo suurageliyey inaan caawa halkaan isugu nimaadno annaga oo ka wada hadlayna halkan xaqa oo soo jireen ah. fadlan waxaan jeclaan lahaa inaan xusuusano shuhadadii halganka reer Ogaadeeya u shahiiday in Ilaahay uga barino inuu jannadii firdawsa sal uga dhigo. waxaan halkaan uga mahadnaqayaa abaabulayaasha xafladan iyo jaaliyadda reer Ogaadeeya ee state-ka Minnesota sida xafladan qiimaha badan oo quruxda badan ay soo diyaariyeen. waxaan kaloo salaan hawada u marinayaa halgamayaasha oo dhiigooda u shubay qarannimada Soomaaliya iyo soo celinta qarannimada Soomaaliya. waxaan kaloo salaan kale u dirahayaa madaxda ONLF gudaha iyo dibadda iyo dhammaan shacabka taageerayaasha halgankan oo geesiyaasha ah, waayo qof aan geesi ahayn maanta halgankan ma taageeri karo. waxaan kaloo hadalkayga ku bilaabayaa anigu inaan ahay qof deegaan ahaan kasoo jeedo gobollada dhexe ee Soomaaliya. qarannimadii Soomaaliya waxay u luntay halganka Ogaadeeya darteed, waxayna ku soo noqon kartaa in halganka reer Ogaadeeya la taageero. waayo hadduu cadowgeenu Ogaadeeyaan u daynay darteed noo dayn lahaa mar horuna dayn lahaa. cadowgeenu haddaan dhulkii Ogaadeeya kuu daynay uu nagu daynhayo mar horuna dayn lahaa. taas waa inaan noo cadaataa haddaan Soomaali nahay. sida kaliya oo cadowgeenu nagu dayn karaa waa inuu wuxuu naga qaatay aan kasoo ceshanaa. Soomaaliduna waxay ku mahmaahin jirtay waagay nooleed haddaan geelow geel lagu dhicin gawaan awal baad ku oodnay. maanta waxaan jeclahay inaan ka hadlo cudurka Soomaalida ku dhacay oo la yiraahdo dulmi. labada nooc uu yahay baan sharaxayaa. cudurka dulmiga ah oo aan ka hadlahayo waxaan ka soo guuriyay buug la yiraahdo Non-Profit Leadership Guide for Organizations in Changing Times. buuggaasi wuxuu ka hadlayaa arrimaha bulshada, wuxuuna aada ugu nuuxnuuxsanayaa dulmiga noocyadiisa oo u kala qaaday dulmiga gudaha iyo kan dibadda. dulmiga guduhu waa marka ay awood isticmaalahayso ciidan military ah oo ilaaliya dulmiga xadadkiisa iyo awoodiisa, ciidan booliisa oo ilaaliya dulmiga iyo shuruucdiisa, iyo warbaahin dulmiga hadafkiisa u adeegta. dulmigaasi marka uu socdo dulmiiluhu ama wuu dagaalamaa oo dulmiga wuu iska dhiciyaa ama wuu isdhiibaa. marka uu isdhiibo oo dulmiiluhu aqbalo dulmiilaha hadafkiisa, dulmigu wuxuu u gudbaa qalbiga oo dulmigii bannaanka waa laga kaaftoomaa. ciidan iyo xoog iyo wixii dulmigaas hirgelin jirayna dulmiiluhu wuu iskala tagaa, waayo wuxuu qortaa shaqaale dulmiilayaashii ka mid ah. ninka buuggan qorayna wuxuu ugu magac daray shaqaalaha waqtigaas la qorto dulmiilaha ismoog. arrintaas waxaa u moodaa inay ka muuqato Soomaaliya, waayo reer Soomaaliya waa dulma yihiin waana ismoog yihiin, kulligoodna Etoobiyaanimay ku tartamahayaan. waxay u dagaalamahayaan oo u halgamahayaan inay dad Etoobiyaana yihiin. waxaan dhageystay meelo fara badan oo liyu boolis dad ku laayay, waxaana waaye hal qof oo yiraahdo Etoobiya nalaysay. liyu boolis baa nalaayay markay leeyihiin way ogyihiin liyu boolis in Etoobiya soo dirsatay, laakiin Etoobiya is afka ku ballaarin karinin. waa nasiib darro. qaarkoodna ayagoo og liyu boolis iyo ONLF waxa ka dhexeeya waxay hadalkooda ku ceeshaan ONLF baa nalaysay, because Etoobiyadii laysay baa weji weli laga diyaarsanayaa. calool xumo weyn weeye. Soomaaliya haddaan nahay reer Soomaaliya, dulmigii wuxuu noo gudbay qalbigu noo degay. waana sababta dhashay in ONLF iyo halgamay iyo taageerayaasheeda ay Soomaaliya laga wiideeyo.
waa sababta dhashay in qofkii ONF taageera oo la maqlo dambiilo laga dhigo. waana sababta dhashay dad fara badan inay qaaraanka ONF iyo taageeradaba na siiyaan ayagoo naga codsanaya inaan qarino magacooda. tusaale haddaan idiin soo qaato, anigu Soomaaliya gobollada dhexaan ka soo jeedaa. hooyaday iyo aabbahay waxay ka soo kala jeedaan laba qabiil oo kala duwan. Soomaaliduna ku taqaana qabiilo dagaalama inay yihiin. ma aamiyaanay nasiib darro ahayn anoo gabadha maanta inaanan galgaduud ku badbaadi karin oo aad hubaa idin jilciya habar gidriya mareexaan igu tartami lahaayeen kii dhiibi lahaa oo aan xaalan igeyn lahaa. waa nasiib darro. midda kale waxaan baaritaan badan ku sameeyey Soomaalida inaan weydiiyo sababta ay halganka uga hareen anoo og isku soo duuduubo Itoobiya cabsideeda inay kaga maqan yihiin. kalmada ugu badan oo ay ii sheegeen baa waxay ahayd magacaas ogaadeenkaan dhacnay. waxaan la yaabay sababta Soomaalidii ku oggol cudurdaar u heshay ay Soomaalida Itoobiya ku dhahaan ogaadeen oo abtirs iyo adeer iyo wax kasta wadaagaan lagu diiday. arrintaas waxay kaloo yaab igu noqotay. anigu waxaan deganahay stateka Massachusetts waa magaca qabiil indi cali beystayna. qof Soomaaliya weligii ima dhihin maxaad qabiilkaas ula degantaa, laakiin ONF baan ahay markii dhaho waxaa la yidhaha maxaa ogaadeen kuu galay. waxaan marka baaritaan kusoo sameeyey inta gobol oo Maraykanka qabiil magaciis ku jiro oo qabiil magaciis ka kooban iyo inta qof magaciis ka kooban oo Soomaalidu wada degan tahay iyagoo dacwo ka qabin. Arkansas, Iowa, North Dakota, oo South Dakota iyo Dakota labadaba ah, Oklahoma, Texas, Massachusetts, Tennessee, intaas oo dhan waa magacyo qabiil. Virginia waa magac Islaam habar magaceed. Soomaalida waa degantaha. Georgia, South iyo North Carolina waa habar magaceed oo laba gobol loo qaybshay. California, Louisiana waa niman magacyadood. Soomaalida waa degantahay dacwana kama qabto. wax lala yaabo Soomaaliya. waxaan jeclaan lahaa marka maadaama aan ognahay dhalinyaro fara badan oo Englishka ku hadasho Soomaaliga Ingiriisku uga sahlan yahay, waxaan usoo diyaariyey gabayaro version maaragtay unknown author ama money authors leh oo author kasta aan arkay his own oo inay u modify garaystaan. I did my own version too. When the things go wrong as they sometimes will, when the road you are trudging seems all uphill, when the funds are low and the debts are high, when you want to smile but instead you cry, is one scare is pressing you down. Rest a bit if you must, but you must not quit. ONLF will never quit. Don't give up. Don't give up, though the base seems slow. You might succeed with another below. ONLF will not quit. Often, God is nearer than it seems to a faltering man. People of Ogadenia will never quit, even if it is very far. The silver lining the dark cloud of doubt, and you can never tell how close you are. It might be near when it seems far. So stick to the fight when you are hardest hit. It's when the thing seems worst, but you must not quit. ONLF will not quit. OYSU will not quit. UHA will not quit. UXA will not quit. People of Ogadenia will not quit. We will not quit. Allah knows what is happening. He sees our struggle. Freedom is in His hands. He knows the way, though it is rough and dear. Allah is the owner of the world, so we must not feel lonely. Continue till we achieve our ultimate goal of freedom, which He will give when our work is done. So we will not quit.
Nowna one of my gabayadeeda tirada badan aan jeclahay qayb ka mid ah aan kusoo gabagabaynayaa ummadaha cirkaa jiiraya samada jeexaaya jiib iyo dhibliyo kuma ay midan degin midashay joogaan jablo iyo rafaad bay mareen qoloba jeerkeeda aan jalleecda taariikhda waa lagu jalbeertaaye mandeelaha jasaadada ka helay dunida jooheeda jabhadnimo dhalaarta u kacay jaafidana qaatay Johannesburg way lahayd jidadka waaweyna ha yeeshee in jabadiisa kale uga jiroonaato ama uu gumaysiga ku jiro jimicsayo diidiye wax la jeebabeeyo hog dheer lagu jaxaasaaba jir dil iyo wuxuu silic muto ay jajabiyaanba halyay jaah adeeg lee rabeen inay jajuubaan wuxuu jalaladaba aakhirkii jooji calankii jaah iyo midabta koor iyo dulmiga jaraha loo gooye annaguna jidkaan hayna iyo jahada loo guuro jawi faraxle weeye iyo qasdigu jiib xorriyadeeda halkankaan in badan loo janqaday jiilba qof u dhiibay jari iyo cadceed baa la mari dhiigla jaraqlayne dowladnimo jileec laguma helo aan jab loo marine ogaadeeyo jeesh baa u kacay iyo jabaabiire ragga jeena qaarsaday jabka ogaadeeyo jeesh baa u kacay iyo jabaabiire ragga jeena qaarsaday hubkee jirir dhireen dhiiqin jiijadii waraabaha raggaa jeexdin uga dhaartay alla ilahay jiridii oomaneed waa ha jabiyeena rabbow jooxa noo daasamay nala jeclaadeen Ethiopia way duntay wayna dulaysaa ragga Soomaaliyeed iyo gabdhaha Soomaaliyeed ama Ethiopia idinkoo weli ka baqahaya idinku dunto oo hadhow hawha lagu noqoto baktigeeda inaa idinka jiirto ama intaysa dumin iska xoreeya assalaamu calaykum warahmatullahi wabarakatuh